بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدنيا حال خاض صوم مقل جرين ترامب وجهيسا بل إيك هذا المرة فتين كزايد وبدن سان أجيدو وجهيسا وفيرسو نتنياهو ورخد وحكا آخرين عليها صور كان أيا ورباهين تشلل لو ذاقي لكن ما أنت أيا لقب بلاروي فلانقينتي سنة وسعوتها نتنياهو ورخد وحكا آخرين عليها تلفون ku hadlaayo walwalsan iyo Trump oo careysan sidee wax u jiraan iyo la hadlaaya waxa soo ka hadli doona biidin Allah taala iyo sidaas oo kale qadar oo garanti heshay naam yaasi garantiga yaasi laga ilaalinaya tan oo isu taagi doona biidin Allah taala iyo waxaan ka hadli doonaa akhbaartii ugu dambeysay maraakiibtii ama doomihii iyo sida xaaladooda hadda ay tahay waxaan kaloo ka hadli doonaa arin uu ku dhawaaqay wasiirka difaaca Israa'iil Katz oo lagu tilmaamay inay tahay dilku xukumid reer Gaza oo dhan tan oo tagi doona biidin Allah taala waxaan ku bilaaweynaa hadallo goosgoos ah jiri doona almuhim Iran aan ku bilowno taliyaha ciidamada Iran wuxuu leeyahay Mareykanka iyo Yurub waxay ku dadaalayaan inay cadaadiska ay nasaarayaan oo noqdo midna gaarsiiya in gantaaladeena meesha hadda ay gaaraan oo taqriiban 2000 ee noo xadiday inay kasii hoos maraan laakiin waxaan u sheegaynaa markay Israa'iil isku daysay inay macnaha natijaabiso soo sida hadalka uu dhigay in aan inta dhinaca koonfurta ka tagnay aan aadnay goobo kale oo cusub oo markaasi aan awood u leenahay tusno in gantaaladeen ay gaari karaan meel walba u baahannahay wuxuu leeyahay 2000 iska dhaafe meel walba u baahannahay ayaan gantaaladeen hadda ay gaarayaan وهذا تليها عيدمada إيران wuxuu ku tilmaamayaa marka pressure inuu socdo la doonayo Yurub iyo Mareykanka in cunaqabateen ziyaado ku saaraan imma cunaqabateentan ayaan idin saareynaa ama gantaaladiina ka yaree 2000 macnaha kuwa 2000 gaaraya dhamaan burburiya kun meelaha waliidi ogal yahay yaani abood ha u yeelanina Israa'iilna taaban kartaan meesha idinku imaado hal idinku garaaco hal dharbaaxo adinka safiicil xasameynina almuhim wuxuu qiraaya inay heestaan gantaala 2000 iska dhaafay 3000 ka dheereeya bal uu leeyahay meel alla meesha aan doonno ayaan garaaci karnaa waa arin cusub dadka qaarkiisna waxay leeyihiin sax ma ahan in hadalka uu ku hadlo maxaa yeelay cadawgaadu una isku soo jiidaysa hadii balaayo cid ka xoog badan inaad sidaa dhahdo yaani in hadda gantaaladii la raadiyo la duqeeyo macnaha qaarna waxay leeyihiin way fiican tahay yacay dabcan cadawga u tahay dhinaca kale drones Israa'iil ay leeyihiin ama ay leedahay waa hal drone ayaa waxay duqeysay gudaha Lebanon gaari ayay markaasi beegsatay oo ay ku tilmaamayaan Israa'iiliyiinta in sarkaal Hizbullah ka tirsan oo saarnaa dadka shacabkan waxay leeyihiin wax ka jir malahan nin shacab ah normal ah oo familkiisa ka soo tagay oo intay dukaanka ku jireen isiri meel kale aad kadibna sidaas ay ku duqeeyeen taasina waa taa dhinaca kale تويتر كان وسوقري وزير كدفاع إسرائيل مجلس لغة المام إسرائيل كاتس بل أنزل تابنه وحوليه هاي سعده إلى صوت في وحان ستوس ودقني عندما مدني ودقين مرين كان نتسريم لده مركزي غزة وخوي يكون في أخرى قيدية هل نفاس يرف ولا مرة أنا نسمين أيوليه هاي محايل مدوين كان دنبا ورخدان قيبني أما والله هذلني أما عدبهيانا كل هذلني أنا قلنا هنا كسو بحا دينعا اي وقويغا فلسطينيintii marka wuxuu yiri fursadaasi qaadan waayay ofarkaasi diiday waxay ku qasbayeen inuu yiri hadirtan intay goor tahay inay soo maraan ciidamada Israa'iil kadibna hal loo baaro yarkood iyo weenkoodaba cid alle cidii aanan soo marin sida ugu dhaqsiyaha badan goobtaasi oo baarid ciidamada Israa'iilna soo marin ha ogaato inay Xamaas noo la mid yihiin yaani la leen doono dhamaan warbaahinta waxay leeyihiin waa dil toogasho oo macnaha shacabkii reer Gaza lagu xukumay maxay macquul ma ahan waqooyiga iska dhaafay xataa marka hoos xooga loo soo dhaadhaco koonfur inta la soo gaarin dhaxda Falastiiniin badan jooga kuwa dhamaantood kama aynan soo bixin marka hadii la dhaho yaani waa inaad Israa'iiliinta soo agmartaan si ay idin baaran ilaa meesha way xirteen hortii waxay ahayd nitsariim way joogeen laakiin Falastiiniinta gadaal ay ka soo marayeen horta dhinacaas ka galayeen dhinaca xeebta aadayeen almuhim saddex goobood oo kale oo ballaaran ayaa furnay laakiin hadda waxay leeyihiin dhammaan waan xirnay
check points annaga aan joogno dhammaan meesha ayaga jooga dabcan ay soo mari doonaan dadka waliba annagoo baarnay oo aan waxaan doono ku sameeyay ay soo mari doonaan kale halkee xaaladda doomihii ay marayaan waxay horta Gaza u jiraan 90 mayl 140 mayl ayaan subaxan isku ogeyn 120 meelahaasi iska dheh hadda 90 ay u jiraan markabkii isku dayay inuu macnaha biyo ku firdhiyo ama daadka ku furo daad miyaa mise hirka ku furo wuxuu ahaa mid markaasi adiga isku dayay inuu khalkhal geliyo waxaa marka la leeyahay wuu ka sikaday laakiin waxa laga baqdin qabaa caawa markuu mugdiga sida caadada ay dhacda in uu macnaha weerarka u dhaco waxaa marka ay leeyihiin kor dheer waxaan ka aragnaa laba markab oo sida gees midna jooga midna geeska kala jooga iyo helicopter ka dul kacaya ayaan kor ka aragnaa kullay 90 kilomitir u jiraan hadda isla meeshan ay hadda joogaan waxaa lagu qabtay Israa'iil ay ku qabatay doontii haddadan tii ku horeysay tii hore ma ahan tii kale horeysay yacnihi waa meeshii Israa'iiliinta ay ugu daateen kana qabteen marka meeshaas xaaladooda maraysa xalato sida la sheegay yani ilaa ay subaxan ma nasan dadkaasi ma seexan rafaad ay ku jiraan maxaa yeelay nasasho loo diiday ciidamada Israa'iil ay sida ku sameeyeen dhinaca kale أنا إيمانه قدر ضمانات خاد كله ضمانات خاوي بلنت لقى خاوي أرنتن وأرن دقدقة تفاصيل شور دير واتنا محا هلكن كفرن ترامب أي وحو صحيحي إن قدر أن لو ويرري كريم ويرر قدر لو ويرران معنيه سوي هي مريكن كون لو ويرري هذا وسيدا هذا قدر ويرتان maraykanka sidoo soo kale ogaada weerarteen damaanad qaad waxa la siinayaa qadar inaan lagu xad gudbi karin saaxiib iyo cadow midna inaanan macnaha qadar farsaari karin haddii ay dhacdo amniga maraykanka khalqiil la geliyay taasoo keeni karta in cidaasi la ciqaabo oo maraykanka ciqaabo meesha say maraysaa qadar kullay malacad tira badan ay bixisay معناها كل ذاتك غاركيس وحكو تلمام أول بقوميسي إسكا هذا وكذا وحي لم يتكا لكن وحا تاكسي درن وكدروا دي بدل هالمر إلى فيريا سوي كيشالي صبح لكن ما أنت لو براروي نتليه وجهي سسيع فيري ترامب أنا فيري ورخدوا وحكا أخنا نتنياهو فيري معناه حكوم وخنايا نتنياهو تلفون هيستا ورخدنا وحكا أخرنا مروغي سنة ترامب oo telefonkiisan gacan uga haaya gacan kala saan ah wajigiisan taagan qaraysan yani say wax u jiraan horta Trump ayaa wuxuu amray waa sharatay in Netanyahu uu raali geliyo qadar shalay ma handara ay afwan Netanyahu waa tawacay qadar bas akhbaaraat la soo galay waxay ahaayeen Netanyahu oo ku khasbanaaday inuu waco qadar amiirka qadar kadib raali geliyay laakiin hadda waxa muuqanaya boqolkiiba boqol siday arinta u dhacday sawirkan ay White House ay soo galiyeen dhash waliba White House ma soo galin wariyaal soo galiyay asagoo markaasi wacaya raali gelinaya si caadi ah one to one macnaha amiirka qadar ayaa la raali gelinaya waxa raali gelinaya waa Netanyahu ayaa wacaya wuxuu doono kuma hadli karo warqad ayaa dabcan oo wax ka akhrinaya Trump agtiisa fadhiyay iraqi Trump uu calaysan yahay meeshaasi marka dadka falanqeeyna waxay leeyihiin waxa meesha ka cad wax lagu wareero mar waxa la arkayaa Netanyahu inuu macnaha xogaa adiga madaxii yahay oo talinaayo marna waxa la arkayaa dhinacan kale inuu Trump yahay cid talinaysa sida haddan oo kale yani Trump calaysan telefoon saan u haya waliba telefoonka macnaha aad si fiican u fiiri hal mar تلفون كله هلا وعادي وأيه هو الاستعمال الجديد طبعا كويس أنت بدل ما راح الاستعمالانه وأهايا لحظة الأكلة سفي عنه فيلسه نتناه فيلسه ورخد صارن على ترامب وجه نتناه وحكمه في السوق الصبي لو يجي سلا ورخد ذاك آخر واحد ورخد ذاك وقرن كليات هاي كرت معناها هذا هذه أدون إسكامات هي كرت أو كم هدي كرت ذاك عليه مركب المهم أردنا حلقة الماما يا قدر إن وحياة بدن أو بدن لقى إن لقى صحيح خاصة مركب إنه قطو حاجة خراشات كا شدال كا غاز كا قدر عنك قطو هاي
إنه حياة بدل ما يشها سهل سكلة معقول ما أهم بروتكشن كنوع عنه كلا كم هني كرتسيد اللي هي بل ذاتك خارج يسوي جارسينا إن لقى يعني ملايكن كه iyo markaasi Israa'iil wax alla wax uga baahdaan ay free ku qaataan meeshaasi ayadan ay hesho damaanad qaad sidaas oo kale akhbaraadka falanqayaasha isheey waxa kamid ah in Trump uu qadar ka ballan qaaday dabcan ama qadar dhacfan inay ballan qaaday in ay noqonayso qolo hoggaansan iyo wixii la midka inta waa intii ugu dambeysay intaas aan ku soo koobay salaamu